saxaabi wariyay in ka badan 1500 oo xadiis isla markaana kamid ah 70 saxaabi oo nabiga baycada la gashay. Waxaa maanta barnaamijkan ku soo qaadanaynaa qisada saxaabigii Ilaahay timirta u barakeeyay ee Jaabir bin Cabdullah al-Ansariyo. balse intaana muuqaalka bilaabin like saar oo subscribe samee si muuqaalada xiga ku soo gaaraan. Jaabir bin Cabdullah al-Ansariyo wuxuu islaamku u ifay asigoo yar waxaana sugnaatay xiriirka kala dhaxeeya rasuulka sallallahu alayhi wasallam ilaa yaraantiisii. Wuxuuna kamid ahaa asxaabtii ugu xifdinta badneed xadiistii nabiga. Saxaabiga Jaabir ma uusan xaadirin dagaalkii Badar iyo Uxudba, sababtuna waxay tahay wuxuu ahaa wiil aad u yar iyo aabihiis u amrayay inuu ku baaqi ahaado gabdhaha la dhashtay oo sagaal gaarayeen maadaama aabuhu asigu dagaalka galayay. Asigoona Jaabir dhahay waxa ii yeeray habeenkii ka horeysay dagaalka Uxud aabahay, asigoona igu dhahay u malaymayo inaan dib isku arkayno, mana ka tagayo axad aan agteeda kaga jeclahay rasuulka kadib oo adiga ahayn. Waxaa leegu leeyahay deen ee iga bixi una naxariiso gabdhaha walaalahaada ah, qayrna u dardaaran. Markii la gaaray waa berigii ama subaxii aabahay wuxuu noqday qofkii ugu horeysay ee dagaalka lagu dilay. Markii aan aasay kadib waxaan u imid rasuulka sallallahu alayhi wasallam waxaana ku dhahay aabahay wuxuu ka tagay deen mana haysto waxaan ku gudo aan ku bixiyo. Kaliya waxaan hayaa beer uu lahaa aabahay, haddii aan doono inaad taas ku bixiyo miraha ay soo saarto ma bixinayo ilaa sanado haddii igu qaadato. Gabdhaha walaalahayga ahna ma hayo waxaan siiyo oo ahayn timirta yar ee beerta ka soo goodo. Marka saas ayay tahay xaaladdu. Kadib nabiga ayaa kacay wuxuuna aaday beertii asigoona tagay karoorkii ama baydarkii oo ah meesha timirta la iskugu keeno. Kadib nabigu wuxuu igu dhahay u yeer dadkii aabaha diinta ku lahaa. Jaabirna wuxuu iskugu yeeray dhammaan dadkii aabihii diinta ku lahaa. Kadib rasuulka ayaa gudagalay inuu mid kasta u beegayo halkii meel oo timirta lagu aruuriyay ilaa aabahay diinta ka guday. Ayadoona ay jiraan meelo badan oo timirta lagu aruuriyo markii ay sanadkii soo go'do, laakiin halka uu rasuulku ka beegayo ayaa ah hal meel oo kaliya. Kadib wuxuu dhahay Jaabir waxaan fiiriyay goobtii waaba isla sideedii, in xitaa galaas laga daray uma maleysid oo xabad timir ah laga qaaday. Kadib waxaa saas Jaabir bin Cabdullah ugu gudmatay deentii aabihii radiyallahu anhu. Waxaan u duceeyay rasuulka waxayna taasna tusay mucjisooyinkii rasuulka ee eebba ugu deeqay. Sidoo kale Jaabir ayaa oofiyay ballantii kale oo ahayd in gabdhaha walaalaha la ah oo si fiican u ilaaliyo qayrna u dardaarmo, asigoona guursaday gabar ka da'weyn. Markii uu nabigu weydiiyay maxaad guursatay wuxuu ku dhahay waxaan guursaday gabar iga da'weyn. Markaas buu nabigu sallallahu alayhi wasallam ku dhahay maxaad guursan weyday gabar ka da'yar oo aad la ciyaarto. Kadibna Jaabir ayaa dhahay waxa ila dhalatay 9 gabdhood, waxa uu cabsaday haddii aan guursado mid ayaga la da'a inuu khilaaf iyo dagaal yimaado. Sidaas ayaan u guursaday mid iga da'weyn si ay hooyo ugu noqoto. Kadibna nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaa u duceeyay oo dhahay Allah ku barakeeyo, asigoona Jaabir cimrigiisu ku dhawaaday ilaa 100 qarni.